iskuulada waxbarasho ee deegaanada maamulka Galmudug. Imtixaankan ayaa waxaa qaadaysa wasaaradda waxbarashada Soomaaliya, kuwaas oo mustaqbalka la filayo inay noqdaan macallimiin u shaqeeya dawladda. Wasiir Dowlaha Waxbarashada Maamulka Galmudug Burhaan Warsame Cigaal ayaa daha furay imtixaankan maanta. Waxaa sharaf weyn oo ah in halkan isugu nimaadno munaasabadatan gaaban oo lagu talagalay in imtixaan kooban loo qaado qayb ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga iyo kuwa hadda ku soo biirayaba dawlad goboleedka Galmudug. Waxaa sanadkan la qorsheeyay in ilaa iyo dhowr boqol oo macallin oo budgetka Soomaaliya lagu daray oo mushaar laga siinayo lacagta canshuurta iyo lacagta dakhliga wadanka soo gala ee aan banaan ka imaan in macallimiinta lacag laga siiyo ayaa la qorsheeyay. Marka qorsheynta la qorsheeyay wadanka waa federaal waa states qayb ka mid ah oo dalka ka mid ah ama state ah waxa loo qorsheeyay konton macallin inay halkan ay ka soo baxaan oo ay wax ka dhigaan oo yaraan dhowr iskuul oo la rabo in dawladdu ay la wareegto. Waxaa aad u yaraa tirada macallimiinta dumarka ah ee soo codsaday imtixaankan. Haddaba maxaa sabab u ah? Su'aashaas waxaan weydiiyay Rijaalo oo ka mid ahayd macallimiinta saaka u fariistay imtixaankan. Anaga aragti ahaanteen gabdhaha waxaan qabnaa haddii macallimiinta gabdhaha ay yaraadaan inaan gabdho badan la helin. Waayo sida ogtiin gabadhu waxyaalaha marka daraasaad laga sameeyo gabadhu ay qaangaarto ay waxbarasho drop out ka noqoto waxaa sabab ah caqabado badan baa la soo darsaya. Caqabadahaas ay u sheegan karin macallinka ragga ah, laakiin sida la og yahay haddii gabar macallimada meeshaas joogto baahiyaadkeeda khaaska way u sheegan kartaa.